الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وهرين معنا ديار السلام يا هوينها هل كنت تاجن عادات تاجنا أنتي درجوا يهرسنا نادي أدبان السلام يا وحكلون السلام يا مسؤولين تقرن كاي وقت جو جماعة النصوص سياسة وقصوا قريب كلام حلو رجين تانو كور رجين يا حلكي حفيزكي يا حسانة دي قرن كوجا هي تجمد فرويني وعن سجارة وقوم بهذا قيا صاحب بدأ إذا ما يرد مقالوين كانوا شاركنا هاي مدة عن حلكن هاي السنة كا أفرت البلاد يلي هي طبعا كعشاء هاي دي ليش شقين يجونو قاب تشوق هذه أدبان وقوم بهذا قيا waxaan marnaba ilaawaynin oo aanan hilmaami kareynin dadweynaha reer Faraweyne haday tahay dibad iyo haday tahay gudaba gaar ahaan tuulooyinka oo muddadii xilkan aan hayay si adag runtii ila shaqeynayay oo ay gudoomiyaashoodii fadhiyaan tuulooyinka waxaan kaloo aad u salaamayaa shaqaale weynaha iyo ciidanka degmada Faraweyne oo muddadii aan xilkan hayay runtii u hagar baxay shaqada ay hayeen qarankan anigana aad ila shaqeynaya baan aad igana u salaamaya runtii kolley toole xafladani maanta waa xaflad xil wareejin ah waxaan jecelahay maadaama oo waqtigu uu inagu dheeraaday dadkoo fara badan awgood inaan soo kaabiyo khudbadaydii aan ugu talagalay inaan ka jeediyo waxaan ku soo goobi doonaa 3 qodob awalan marka hore waxaan idin xasuusin doonaa maalintii aan la wareegay xilka degmada Faraweyne halkii ay taagneed waxaa kale oo aan xusuusin doonaa oo muxuu ahaayay iyadana qodobka labaad muddada sanadka iyo 4 bilood aan joogay wixii ii qabsoomay qodobka afraadna waxa weeyaan wixii ii qorshaysnaa ee qorshaha balaankii aanu samaysanay markii aan xilka la wareegay runtii hadda qorshaha pipeline-ka ay runtii gudoomiyaha cusub oo halka ka sii wada doono waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub Maxamed Cabdi Gargaar oo intii aan xilka hayana aniga consultant ahaa oo harkii runtii igala talinayay hawsha degmada aan ka hayay maantana aan ku wareejin doono xilkii iyo xafiiskii iyo rajadii ay qabtay ummadda reer Faraweyne waxaan anigu la wareegay xilka gudoomiyaha degmada Faraweyne 23kii September 2018kii maalin Axada waxay igu wareejiyay degmada gudoomiyihii aniga iga horeeyay Faysal Maxamed Jaamac oo isaguna goobta jooga waxaan la wareegay degmada Faraweyne oo ah degmooyinka ugu qadiimisan qarankan iyo degmooyinka gobolka Maroodijeex oo runtii baahi weyn ay ka muuqato haday tahay caafimaadka haday tahay biyaha iyo haday tahay waxbarashada iyo haday tahay amniga maalintan anigu xilka la wareegay runtii lama wareegin wax gaadiida oo aan ku hawl galo ama shaqada degmada lagu qabto haba yaraatee marka laga tagi waayo dambi la'aan waxa la wareegay 3 gaari oo iskaraaba oo nimikana wareejin doona iyagoo iskaraaba iyo had gaari ximaar oo dameerkiisina uuna joogin waxaan anigu la wareegay degmada Faraweyne oo runtii aan gudoomiyaasha tuulooyinka iyo degmada Faraweyne ayna isku xidhnayn oo ay tuulo waliba dhinaceega isu maamusho isla markaana ayna iska warhaynin waxay ku sugan yihiin iyo halkay marayaan iyo wixii u soo kordhay iyo waxay hayaan ayaan anigu la wareegay waxaan la wareegay degmada Faraweyne oo aan lahayn data rasmi ah ama xuduud rasmi ah oo aan markaasi halka ay ka soo noqoto iyo halka ay ku dhamaato aanan muxuu ahaayay ayaan la wareegay waxa kale oo la wareegay runtii iyadoo ay jirto markaasi caqabad oo ah degmada 28 sanadood iyo in ka badan degmada Faraweyne ahayd oo aan mar quraata dawladnimadu waa cashuurta oo aan cashuur iyo nidaamkeega marna aan loo daadajin xafiisku waa halka laga wada shaqada degmada Faraweyne xafiiska degmada Faraweyne ee aan ku wareejin doono gudoomiyaha degmada Faraweyne ma ahayn xafiis ahaan shaqaale ahaan iyo maamul ahaan u habaysan oo loogu adeego sababtoo ah anigu lama wareegin structurally degmada Faraweyne haday tahay agaasimayaal dhisan iyo muxuu ahaayay maamul dhisan oo markaasi kala dambeyn iyo isla xisaabtan
intaasi waxaan ku soo goobayaa inaan dib inoogu yar celiyo xusuustii maalintii 23 bishii Sebtembar ee aan xilkan la wareegayay. waxaan jecelahay inaan markaasi aan ku soo u yimaado qodobka labaad oo ah muddada sanadka iyo dhowrka bilood iyo dhowrka cisho ah ee aan xilkan maanta aan wareejinayo oo aan hayay. xaaladda caafimaadka ee aan ka soo sheegay runtii degmada Faraweyne waxa ku yaala saddex MCH ayaa ku yaalay markii aan la wareegay. 2 MCH shaqadoodu official ma ahayn, hal MCH na waxa uu la ciirciirayay culays dhaqaale iyo culays markaasi aanay gaadiid la'aan hadday tahay ambalaasyada. maalintii aan la wareegay ambalaaska kaliya ee aan la wareegay ee shaqaynayay waxa uu ku shaqaynayay 2 speed oo kaliya oo aan meel fog gaadhaynin. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa xildhibaan Axmed Daahir oo markii ugu horeysay noo hawlgeliyay ambalaaskaasi oo uu noo kiciyay oo la geliyay isbedadii iyo lacagta ku baxdana iyadoo ahayd ilaa $1,000 oo lacaga la geliyay. aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa xildhibaan Axmed Daahir markii aan u soo bandhigay hawshaasi inuu wax igala qabtay. waxaan iyadana si aan looga baxo baahida ambalaaska ama baahida adeega caafimaadka waxaan isku daynay oo u raadino in la helo gaadiid kale oo loogu adeego ummadda ballaaran iyo deegaanka ballaaran ee 40 tuula. waxaanu markaasi ogaanay gaari 4 sanadood ku oodan meel oo fadhiistay 4 sano ka hor ayaanu ogaanay oo gaariga ambalaaska halka taagana waxaanu gelinay dhaqaalihii ugu badnaa oo ilaahay dhaqaalahaasina ay degmada Faraweyne lahayd. gaarigaana waanu soo kicinay, maantana waa u shaqeynayaa, waxaana u adeegi doonaa ummadda. shaqaalaha caafimaadka hadday tahay midwiferyga iyo galgaalisooyinka iyo hadday tahay nursingka iyo hadday tahay waxa la yiraahdo community midwife-ka, macnaheedu waxa weeyaan iyaguna waxay u baahanayeen markii aan la wareegay in dhaqaale la geliyo, firfircooni la geliyo. waxaan u raadinay mashaariic iyo walibana hawlgallo ay ku shaqeeyaan. bishii November ee sanadkan ay naga tagtay waxaanu heshiis caalami ah la saxeexnay hay'adda la yiraahdo Save Children oo naga ka fargarayn doonta dhammaan caafimaadka degmada Faraweyne oo runtii maantana shaqadii ugu horeysay bilowday. xagga caafimaadka waxa ka shaqeeya dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah. markii aan anigu la wareegay marka laga reebo MCH kan oo ay dawladdu markaasi qabanqaabadiisa iyo hawshiisa la ahaatee aan qof quraadii payroll-ka dawladda kaga jirin shaqaalaha degmadana waxay go'doon ka ahayd hay'adaha caafimaadka ee kala shaqeeya dhinaca caafimaadka. waxaanu markaasi u mahadnaqaynaa hay'adaha nala shaqeeya hadday tahay kuwii hore nala shaqeynayay, hadday tahay hay'adaha cusub ee imika heshiisyada iyo shaqada nala bilaabayba aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa. waxaa markii aan anigu ka shaqeynaya hal hay'ad oo la yidhaahdo Welfishar oo keliya oo incentive-ka bixinaysay markaan imida caafimaadka. maanta waxaa ka shaqeynaya ugu yaraan 4 hay'adood oo caalami ah iyo hal NGO local ah oo intuba ay caawimo iyo geliyaan dhaqaale caafimaadka degmada. dhammaan tuulooyinka waxaa ku sugan oo hadda ka shaqeynaya ugu yaraan 4 hay'adood tiimam ay leeyihiin oo ay tuulo walba 4-5 tiim joogaan oo ay ka caawinayaan nutrition-ka carruurta iyo haweenka maadaama yihiin kuwa ugu jilicsan ee bulshada. shaqaalaha caafimaadka oo runtii koobnaa waanu kordhinay, waxaanu u raadinay dhaqaalihii ay ku shaqeyn lahaayeen. hay'adda Save Children la yiraahdo waxay naga caawinaysaa oo shaqaale ahaan ugu shaqaaleysay 18 shaqaale ah oo cusub iyo walibana 24 qof oo la yiraahdo kuwa la yiraahdo midwife community-ga oo ah haween umulsa dhaqameedka kuwa loo yaqaano tababar la siinayo si ay u caawiyaan haweenka umul arooraya ee dhibaatada runtii ay ka haysato. dhaqaalaha degmada Faraweyne iyo sida markaasi waxa degmada Faraweyne sida Axmed Xaashi oo sheegay aan anigu la wareegay miisaaniyad noo sii dhamaanayso gabagaba sii maraysa. miisaaniyadaasi maalintii aan la wareegay waxay 400 milyan 800 milyan baan 2019kii anigu aan shaqeynay aan ku shaqeynay oo soo saarnay. maanta oo aan wareejinayo xilka gudoomiyaha degmada Faraweyne waxaan gudoomiyaha cusub ku wareejinayaa 1 bilyan iyo 500 kun oo miisaaniyada loo baahan yahay 2020ga inay ku shaqeyso. miisaaniyadaasi dhammaanteed way qorshaysan tahay sida loo soo saarayo, siday u baxayso, halkay u baxayso dhammaanteed qorshaheeda waxaan ku wareejin doonaa gudoomiyaha cusub. waxaan ugu talagalay miisaaniyadda in
caafimaadka wax lagaga qabto biyaha wax lagaga qabto waxbarashada wax lagaga qabto muxuu ahaaye isku xidhka bulshada wax lagaga qabto tuulooyin bay degmadani xukuntaa oo aada u ballaaray dhammaantood waxaa xukuma hayrtuulayaal dhammaantood ma laha dhaqaale gooni loo siiyo waxay ku jirtaa miisaaniyadda 2020ga waxaana rajaynayaa in maxamed cabdi gargaara sii wadi doono waxaan u gudbayaa inta xagga gaadiidka runtii oo iyaduna baahi weyn ay u qabtay markii aan la wareegay maanta waxaan wareejinayaa 8 gaari ayaan ku wareejinayaa saddex waa gaari haabtoobyada kuwa caafimaadka lagaga shaqeeyo labana waxa weeyaan 2 gaari oo ay ku shaqayn doonaan maxaan idhaahdaaye maamulka degmadu waxaa kaloo aan wareejinayaa infrastructure kuwa lagaba maarmaan marka bulshada ay horumaraysa haddii aan waddo la helin oo infrastructure la helin horumar ma imanayo cagaf sheewala oo nooca ugu weyna oo iyadana loogu adeegi doono dhammaan tuulooyinka degmada Faroole marka laga reebo hal gaari oo hadda wakaalada yaalo oo hay'adda Save Children mashruuceega ku jiro oo dhawaan soo gaari doona waxaa halkaa yaala in alli intii kale ayaa bisiyadoo ay muuqaala oo la taaban karo ay halkaa maanta horteena yaalaan caafimaadka waxaan ku soo gudbinay muddada aan joognay 2 MCH oo labadaba yihiin scale-ka ugu sarreeya dhinaca MCH-da caafimaadka degmada Faroole way ballaaran tahay marka laga reebo 3 MCH ku yaala koonayaasha waxay u baahatay MCH dhexda ah oo aan u qorsheynay in laga dhiso meesha la yiraahdo tuulada la yiraahdo Daboolq oo isaguna dhamaaday oo maanta shaqayn doono bidmillaahi kariim si degmada xuduudooda loo soo xidho oo xuduudaha degmooyinka kale aan uga leenahay aan u maamulno waxaanu tuulada xarafka ka hirgelinay MCH isaguna 10 qol ah iyo 2 waan oo hadda shaqeeyo shaqaalihiina joogaan oo u adeega dadka waxaan yardoonaya iyadana inaan ku istaago dul maro maadaama waqtigu kooban yahay dhinaca waxbarashada 28 iskuul baan la wareegay maalintan xilka la wareegayo oo hoose dhexe 2 iskuul way xidhna 3 iskuul way xidhnaayeen oo ma ay shaqaynayeen in inta kalena shaqadoodu ma jirin ma nan hay lama wareegin data sax ah inta iskuul inta galaas yihiin iyo inta macallin joogta iyo inta arday dhigata waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliland 28 sano ama 30 sano kadib degmada Faroole waa markii ugu horeysay ay imtixaan shahaadiga lagu qaado ayaa noo hirgashay muddada aan joogay annagoo ka codsanay wasaaradda waxbarashada inay noogu qaato si aynu secondary school u helno inaan imtixaanka aydhirka oo awal hore la geyn jiray magaalada Hargeysa isla markaana ilmaha magaalada halka Faroole laga kaxeeyo ama tuulooyinka laga kaxeeyo ay ku adkayd inuu la galo ardayda Hargeysa joogto oo isku bay'ad iyo isku environment midna ma ahayn waxay degmada Faroole bixinaysay intii ay imtixaanku socday dhaqaalaha ku baxaya iyo hurdadooda iyo cuntadooda ardaydaas ay dhirka ka baxday sanadkii dhawaa 2019kii 730 arday baa nooga graduate gareeyay imtixaankii ay dhirka xabadna laga meedhay adduunyadu waxay ku xidhan tahay ku wanaagsan tahay ku qurux badan tahay halka ku fadhinaa waa amni anigu waxaan la wareegay 7 askari oo niman oo askari oo in badan degmada joogay oo ku daaray shaqada degmada maadaama ay ballaaran tahay markii aan xilka la wareegay waxaan taliyaha ciidanka booliska oo Allah u naxariistay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya ahaa markaasi fadal waxaan ka codsaday in ciidan la siiyo wuxuu ii sheegay in ciidanku ku adeeg yahay oo ku yar yahay oo aan markaa maanta aan heli karin waxaan haddana mar labaad ka codsaday oo aan aad iyo aad uga mahadnaqayo gudidii markaa ay kala shaqeyso oo la gudida horumarinta oo anigu aasaasay oo maanta inagala jooga Dr. Axmed Xaashi oday inay igala hawl galaan inuu ii qoro ciidan u adeega amniga degmada 2019kii wuxuu ii qoray 6 askari oo dhalinyaro ah oo aan ka qoray tuulooyinka maanta ay muxuu ahaay xilkooda iyo rajadooda aan ku wareejin doono gudoomiyaha cusub 6 askari way ka hawl galaan tababar bay noo soo qaateen aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa hogaamada ciidanka markii uu Allah u naxariistay taliyadii hore geeriyooday taliyaha cusub la wareegay xilka markii uu 20 cisho joogay waxaan la kulmay taliyaha goor casara oo 4 galabnimo ku sugan waxaan ka codsaday 3 qodob inuu wax iga qabto koow inuu iga qabto gaadiidka caafimaadka laba inuu wax iga qabto ciidan saddex inuu iga qabto in dhismo la helo saldhig loogu adeego xuduudda maanta ay maartay isla goobtii aan joognay annagoo ka kicin waxa uu janarka ciidanka booliska oo maanta hogaaminaya ciidanka booliska oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo
wuxuu amar ku bixiyey taliye in saldhigga faraweyne la bilaabo oo maanta isaguna gabagabo maraya isla markaana 30 askari oo ciidan ah oo dhalinyaradii markaasi aan nasiibka u helin inay ka qalinjabiyaan iskuullada inaan muxuu ahaay ii qarameeyo oo dhawaan ay kasoo bixi doonaan tababarka oo ay u adeegi doonaan runtii waxaan soo kordhinay maadaama halkan ay tahay xaruntii degmada isla markaana magaalo madaxdii degmada waa lagama maarmaan inay hesho rugal bilays oo laga xukumo saydharka kala degmada ugu yaraan 4 rug baanu hirgelinay muddadii aan xilka joogay hadday tahay rugta wadamakaahil iyo rugta bandaramaan iyo rugta garyagol iyo isla markaa rug kaloo iyaduna aanu ka wadabiliska hirgelin rugahaasina dhammaantoodu way shaqeeyaan marka ciidan loo helo tayo badanna way sii gudbin doonaa shaqada waxaan waxaasoo dhan xagga amniga awoodda u saaranay maadaamay tahay halkan xuduud waxay muhiim weyn ugu tahay qarankan jamhuuriyadda Soomaaliya aan doonaa haddaan intaa kaga baxo dhinaca amniga xaaladda biyaha ee degmada Farowe runtii waxay ahayd xaaladaha ugu adag ee qallafsan ee ka jiray degmada Faroweyne markii aan xilka la wareegay isla markaana maantadan aynu joogno waxay u baahan tahay degmada Faroweyne xaal biyo waayo biyuhu waa nolosha waxaan xukuumaddii mudane madaxweyne Axmed Silaayi oo ay ka hirgelisay degmada Faroweyne Nabarhi oo runtii sida la sheegay uu ku baxay dhaqaale badan hase ahaatee aan midna goobo biyaha laga cabin had iyo jeeraalana biyaha Faroweyne waxaa la yidhahdaa lama gaadhayo iyo meel muxuu ahaaye lama helayo waxaanu isnidhi si arrintaasi ay meesha uga baxdo iyadoon assessmentna lahaynin waxaanu degmada u samaynay wax la yidhaahdo biyo baadhis halkiis intay jiraan biyuhu maanta daata rasmiya ayaa loo hayaa degmada Faroweyne biyaha guda jiraan muddada aan xilka hayo waxaa noo suurto gashay inaan la bilaabo 2 ceel oo labada ceel mid riiga yahay midna uu yahay ceel casri ah oo ceelasha loo yaqaano xafiir dhaamiska waxa loo yaqaan runtii ceelka riiga oo laga hirgelinayo wadda bariis waxaa hirgelinaysaa xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaana laga hirgelinayaa miisaaniyadda qaranka ceelka kale oo isagana laga hirgelin doono dowladda la yidhaahdo bandaramaan ama se ceelkii loolan jiray ceelgaalka dadka waaweyn baa inta badan garanaya oo isagana laga dhigi doono ceel casri ah oo markaasi si fiican loo qalabeeyo waxaan qaranka ka caawinaysaa baanka la yidhaahdo baanka horumarinta Africa oo iyada isagoo kaashanaya hay'adda la yidhaahdo Save Children intaasi waa intii noo qabsoontay muddadaan xilka waxaan jecelahay inaan sunto oon xariiqo maanta waxaan muxuu ahaaye wixii noo qorshaysnaa si halkan looga sugo oona u lumin himiladii iyo xankii aanu ka lahayn degmada Faroweyne sidaan idiin sheegay waxaanu sanadkan maanta ansixisanay miisaaniyaddii ugu badnayd ee ay degma ku shaqayso runtii waxaanu ugu talagalnay number 1 in maadaama oo dee tuulooyin ay yihiin tuulooyinka laga sameeyo xarumo caafimaad iyo welibana goobo bilays runtii waxa miisaaniyaddeeda hadda ku cad oo usluubtii gargaar ula wareegi doono ku shaqayn doono 2 rug bilays oo midna laga hirgelin doono tuulada la yidhaahdo Garabis midna laga hirgelin doono tuulada Sheekh Moodale oo budgetkeyga dhaqaalahayga samaysan yahay runtii maadaama aanu sanadkii hore ku guulaysanay in imtixaan shahaadiya laga qaado oo loo fadhiisto degmada Faroweyne waxaa noo qorshaysnay sanadkan inay degmada Faroweyne hesho school boarding oo runtii markaasi ay dadka da'yartaasi rajadooda runtii nooleeya halkuu ka imanayaa waa isweydiina sidaysan noogu qorshaysnay number 1 waxaa noo qorshaysnay inaanu annagu seeska ugu horeeya bilayno qorshahana waan kugu wareejin doonaa isla markaana markaa intii wixii ka dambeeyay ilaahay ciddii kale u diray ay dhammaystiri doonto mudane guddoomiyaha cusub iyo mas-uuliyiinta iyo dhammaan marti sharafta halkan joogta waxaan ku wareejinayaa oo noo qorshaysnaa sanadkan runtii inay degmada Faroweyne 8 kilomitir oo halkaa aynu maanta joogno ilaa tuulada la yidhaahdo Garyagol oo inta ugu adaga inay caqaftaa sheewalka ah ee halkaa taagani ay markaasi isbanayso horta bal inta waxa kaloo dhan ayna soo gaadhayaan ay ahaato meel u diyaarsan in wadda laga sameeyo waxaan rajaynayaa in Maxamed Cabdi Gargaar halkan kasii qaadi doono waxaan doonayaa inaan halkan runtii uga mahadceliyo dhammaan intii ila shaqaysay muddada aan xilka hayay si go'aan gooni ah iyo si guudba
waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddoomiyahaygii gobolka Maroodijeex iyo guddoomiye ku-xigeenka oo muddadii aan xilka hayay ahaa kuwa garab iyo gaashaan ila garab ku taagnaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee bankiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii aan u soo bandhigay inaan kabka degmada Faraweyne uuna isu baxaynayn in bil kasta la qaato aan nala ogolaaday oo maanta ah taabiriheegi la arkayo waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo saaxiibadaydan maanta macal salaameyn doono oo ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenkaygii iyo xogayahaygii iyo dhammaan mas-uuliyiintii dowladda hoose hadday tahay dhammaan shaqaale weynihii ila shaqaynayay muddadii aan xilka joogay waxaa kaloo aan ku faraxsanahay runtii in ay maanta aan ku wareejinayo guddoomiyaha degmada Faraweyne ee cusub degmo dhammaystiran gaadiid hadday tahay caafimaad hadday tahay dhaqaale hadday tahay iyo haddii ay tahay bulsho isku xidhan oo runtii maanta qofna qof uuna garanayn tuulayaashuna ay iswada garanayaan qof walbana qofka kale uu garanayo waxaa kaloo idin ilaahay mahadiya runtii inaan ku wareejinayo degmada Faraweyne oo ay dhammaan suntan tahay ee caddahay xuduudaheedu waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa haweenweynaha degmada Faraweyne gaar ahaan xaruntan aynu maanta joogno oo markii aanu nimid aanu u samaynay urur haween oonu markaasi ka rajisgaraynay ururka haweenka ee qarankeena oo isla markaana dhaqaalihiisuna horena u jiray iminkana aanu ku wareejinay iyaguna muddada ay la shaqeynayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan runtii ilaawi karaynin hablaha ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan MCH-ka Faraweyne aynu hadda joogno oo ah kuwa naftooda hurayaala sababtoo ah kuma shaqeeyaan dhaqaale uu leeyahay qaranku leeyahay ama ay wasaaradda caafimaadku waxay ku shaqeeyaan caawimo dad kale ay siiyaan oo mararka qaarkood la waayo oo markaasi ay markaana u dhabar adeegaan oo ayna marnaba u leeyahay waxaan doonayaa in halkan uga mahadnaqo hoggaanka dhismaha ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Blaiska oo muddo bil iyo dheeraad 2 bilood oo dhowna la deganaa halkan isla markaana saldhiggaas oo ah saldhiggii ugu casrisanaa ee inta ay Soomaaliland jirtay laga dhiso xuduudaha ama degmooyinka iyaguna dhisay oo hirgelinay oo gacantooda ku dhisay waxaan adeerkay ninka odayga ah marna ahaa la taliyahaygii hore iminkana ah guddoomiyaha cusub ee degmada Faraweyne saaxiibkay Maxamed Cabdi Gargaare waxaan ku dardaarayaa waxa aanu qabanay muddada aan joogay ee noo qabsoomay inaad ku faraadayto oo halka sideeda u faraadayto oo wixii aad ku dari kartana aad ku darto waxaan ka iloobay oo iminka miisaaniyadda qaranka laga dhisi doonaa isaguna qorshaysan gas house oo yeelan doonta degmada Faraweyne oo miisaaniyadda ugu jira 2020 waxaa kaloo la bilaabi doonaa customka oo runtii baaba'sanaa oo isna dhismihiisu isaguna miisaaniyadda ku jiro oo isagana la bilaabi doonana runtii waan noo qorshaysnayd waxaalaaliya waxaasi kumay imanin keliya inaan anigu keenay ama sakartadeeda waxay ku yimaadeen marka hore ilaahay baa noo hirgeliyey inay waxaasoo dhan noo qabsoomaan mar labaadna waxaa noo hirgeliyey dadweynaha degmada Faraweyne oo aan muddadii aan anigu joogay si weyn runtii oo aan aaminsanahay 11 guddoomiye iga horreeyey ulamay shaqeyn waxaanu gaarsiinay tuulooyinka dhammaan maamulka iyagaanu gaarsiinay micnaheedu marka maamul dowladeed la leeyahay waa cashuur ciidan iyo welibana maxaa dhahdaayay dowladnimadu inay gaadho dhammaantood tuulooyinku waxay tababaran yihiin maanta cashuuraha la qaaday iyo xilliga la qaaday sida loo qaaday in tababaran yihiin siduu sheegay barisaab ku-xigeenka gobolka waxaa degmada maanta ka howlgala dhakhtar senior dhaktarisa oonu kala soo wareegnay degmada la yidhaahdo maxaa idhahdaaye gobolka Gabiley markii hore ka howlgali jiray isbitaalkooga oo maanta ka howlgala isbitaalkan amase MCH-ka waxaa runtii noo qorshaysnaa oonu diyaarinay dhulkii laga dhisi lahaa isbitaalka waxaa kaloo noo qorshaysnaa oo imika diyaar ku ah ku wareejiyey taliyaha ciidanka booliska dhulkii laga dhisi lahaa xerada daraawiishta oo runtii ah xeradii laga ilaalin lahaa ama se laga kormeeri loo amniga lagu sugi lahaa oo aan nasiib ay u heshay degmada Faraweyne in iyada laga hirgeliyo waxaan joogay muddo sanado sidaan hore u sheegay waxa shaqadaas soo dhalisa maadaama ay ku hirgashay waayo shaqa ma hirgashay haddii aan amisay saaxiibaday labada taliye ku-xigeenka iyo taliyihiisa degmada Faraweyne jaamac iyo Cabdi Mawlid oo runtii barbar taagnaa inay wax walba qabsoomaan iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa iyo ciidankooga
يعد كستوى لشا قيسي آدي أباد مع سلطهم مثل التعب توتا الميدان وحنان الله من الصحافة وضوتي يغنوا بحدق يوم انت أيقنا يتاقنايات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته